haddii aad is leedahay saddexdii bilood waa la gaaray waa ay qaxootiyadii loo furi la'yahay jawaabtaadii oo yara kooban oo 2 daqiiqo ayaan ku siinayaa sidoo kalena muuqaalkan qabo asxaabtaadii la sii wadaa haddaba maamulka Donald Trump waxay hore u sheegeen in 3 bilood fursad ah ay qaadanayaan si ay u soo ogaadaan in qaxootiyada ay dani ugu jirto Mareykanka iyo inaysan dan ugu jirin waa qaxootiyada la keenayo Mareykanka haddaba 3 bilood waa la gaaray haddaysan wax yar ka dhimnaynba warbixin miyaa soo baxday horta warbixin ma soo bixin waan ogahay inaad is weydiinaysaan war 3 bilood waa la gaaray maxaa dhacay inaad is leedihiin weli warbixin kama soo bixin tiimkii hawshaasi loo diray tiimkaasi waxaa laga sugayay inay dhahaan yes arrimaha qaxootiga ama keenista qaxootiga dalkan Mareykanka dan ayaa noogu jirtay hala keeno ama dan nooguma jirto ma rabno inay dhahaan sidaasi ayay la maqan yihiin ilaa hadda maxaa marka next waxaa macquul ah in ay aamusaan inkastoo hay-adaha arrimaha qaxootiyada u dooda aysan aamusaynin oo afka furan doonaan oo dhihi doonaan waay loo hadli la'yahay 3 bilood way dhamaatay haddana waxay damacsan yihiin waxay tahay inay yara aamusaan inta ay aamusi karaan ay aamusaan dhanka kalena bisha June waxaa la sheegayaa in wadamo 43 ilaa 47 wadan ah oo Soomaaliya ay ka mid tahay la saari doono cunaqabateyn dhanka socdaalka ah xanibaad ayaa la saari doonaa haddaba xanibaadaasi Soomaali way saameyn doontaa laakiin waxaa ilaa hadda la ogeyn in dadka DV lottery ku imaanaya ay saameyn doonto iyo inaysan saameyn doonin hadda right now dadka DV lottery ma ku imaadaan iyagoo adeegsanaya baasaboorka Soomaaliya yes waa lagu imaadaa bishii afaraad dad baa ku yimid gudaheeda ilaa 4 ruux oo kala duwan oo stadiyo kala duwan jooga ayaan aqaanaa oo DV lottery ku imaaday right now ku imaaday hadhow laakiin ma waxba isbedeli doona wallahi lama yaqaano in la arka waayo Donald Trump iyo maamulkiisa wax laga qoro ma jirto wax walba markay sameeyaan in la arka mooyaane lacala dhan lagama qori karo sidaas awgeed waxaan idin leeyahay arrimihii qaxootiga 3 bilood way dhamaadeen welina akhbaar lagama hayo arinta DV lottery-ga in baasaboor lagu imaan karo baasaboorka Soomaaliga in kalena warbixinta waad hesheen hadhowna wixii soo baxo shaaciyo wanshow ayaad kala socon doontaan halkan waxaan ku falanqeynaa siyaasadda caalamka iyo waliba DV lottery group 5 iyo arrimaha qaxootiga ku soo biir asxaabtaadina la wadaag muuqaalka si ay uga faa'iideystaan wabillahi tawfiiq